kulanti wanaagsan daawadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta iyo tinida wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada ugu doorka roon ee aad wararka ku daawan doontaan waxaa ka mid ah xaaladii dalkaasi Turkiga magaalada iyo gobolka Afrin ee dalkaasi Suuriya oo kululaatay iyo ciidamo Turkiga ah oo halkaasi ku dhintay koox ka mid ah Mareykan ah oo ku sugan ama ku soo qulqulaya wadanka Turkiga dalka Saudi Arabia oo billion dollar oo deeqa sheegay in dalka Yemen sii doono isagoo ku dhawaaqay inay dabooli doonaan dhammaan baahida aadane ee ka taagan dalkaasi Yemen sidoo kale daawadayaal qodobada waxaad ku maqli doontaan ama ku dhageysan doontaan Facebook iyo waliba baraha bulshada oo markaasi dalacaynta lagu hayo ee wararka been abuurka ah iyo dhibaatooyinka dhinaca maskaxda ay geysanayaan oo badatay iyadoo haatan la doonayo in la xakameeyo baraha bulshada waxyaalaha lagu faafiyo iyo waqtiga badan la geliyo Maxamed Cabbaas oo madaxweynaha Falastiin oo asaguna u gooyay kulan uu la qaado lahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka oo marmaraya gobolka Bariga Dhexe qodobadaas iyo kuwo kale ayaan kula faguri doonaa wararkeena kuna la falanqeyn doonaa daawadayaal dabcan waa 23 bishii Janaayo talaado 2018 waa kol kale barnaamijkeennii falanqaynta iyo tinida iyo warbixinihii caalamiga ah ee Mareykanka ayaa qaybtii labaad ee qaxoontiga ay dawladda Australia ku hayso jasiiradda la yiraahdo Papua New Guinea ayaa sheegay inay halka ka qaadayaan iyagoo loo qaadayo dalka Mareykanka kadib heshiis dibadejin ah oo horey loo saxiixay ku dhawaad 40 nin ayaa ka tagay maanta oo talaadada jasiiradda Manus waxaana sidaas shaaciyay warbaahinta maxalliga ah iyo kooxaha u ololeeya arrimaha qaxoontiga arrintan ayaa imaanaysa iyadoo ay bishii September ee sanadkii aan soo dhaafnay ay halkaas laga qaaday 54 ruux xukuumadda Canberra iyo Washington ayaa ku heshiiyay in Mareykanka ay qaataan qaxoonti dhan 1250 ruux oo dada ama qaxoonti ah 18 qof oo kale qaxoonti ayaa lagu wadaa in ay u duulaan dalka Mareykanka bishii soo socota sida ay sheegeen dadka u ololeeya arrimaha qaxoontiga iyo xuquuqda aadanaha qaxoontiga oo inta badan ka soo jeeda dalalka Afghanistan iyo Pakistan ayaa loo diiday in dibadejin laga siiyo dalka Mareykanka kolkii hore nidaam muran badan dhaliyay ayaa dawladda Australia waxay dadka magangeliya doonka ah ee doomaha ku yimaada ay ku haysaa jasiiradda Manus iyo dalka ku yaala Pacific ee Nauru heshiiskan ay Mareykanka oo saxiixay markii uu maamulka madaxtinimada hayay dalkaasi Obama ayaa waxa markii hore cambaareeyay isla markaana is hortaagay madaxweynaha haatan talada hayay Nicolas Mr. Trump dawladda Australia ayaa dhankeeda aqbashay tiro yar oo qaxoonti ah oo ka yimaada bartamaha America hay'adda qaxoontiga adduunka UNHCR ayaa sheegtay in tan iyo bishii December 2016 ay Mareykanka geysay qaxoonti ka badan 1200 qof oo ka yimid deegaanadaas iyo jasiiradaha Pacific dawladda Australia wali kama aysan hadal qaxoontigan cusub ee la qaaday sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee la sheegay in halkaas ku sugan yihiin oo dabcan trailer hase yeeshee ay jiraan dad Soomaaliyeed oo xirigaha qaxoontiga ku jira ayaan la sheegin in la qaadi doono iyadoo laga magacaabay qaxoontiga Pakistaaniyiinta iyo kuwa markaasi ka yimid bartamaha qaaradda dalkaasi America qaybo kamid ah Pacific ku xaniban halkaad nagala socotaana waa daawadayaal waa Horfadhi Media wararkii ugu dambeeyay tirida weeye dabcan walina waxaanu qaada dhiganaa wararkii caalamiga ah ee saxafiga rugcadaaga ah ee Robert Munich ayaa sheegay in shirkadda Facebook ay tahay inay bixiso lacagaha dadka wax ku daabaca oo wararka geliya hadii ay shirkadda ka go'an tahay inay taageerto wararka saxda ah ee aan been abuurka ahayn ama waxa loo yaqaan aan ahayn fake news hadalkiisa ayaa ka dambeeyay xilli uu sii kordhiyay cadaadiska lagu hayo bartan bulshada inay wax ka qabato wararka been abuurka ee lagu baahiyay shirkadda Facebook kaasoo ay report gareeyeen ama ay gudbiyeen dad badan oo markaasi dunida ka kala tirsan ama bulshooyinka caalamka shirkadda Facebook ayaa toddobaadkii soo dhaafnay waxay sheegtay in ay darsi doonto dadka isticmaala bartan naantana la siin doono isha wararka ay ka yimaadaan iyo sida loogu kalsoonaan karo Mr. Munich oo isagu lagu naanayso The Times iyo The Sun ayaa sheegay in hindisaha shirkadda uu yahay mid aan dhamaystirnayn maalqabeenkan wuxuu sheegay in shirkadda baraha bulshada ay tahay in dadka wax soo geliya oo ku daabaca lacag ay siiyaan wuxuuna yiri dadka wax daabaca ayaa dhab ahaantii waxa ay sare u qaadayaan mabaadi'da iyo kalsoonida lagu qaban karo Facebook iyagoo u sii maraya macluumaadka wararka ay ku baahiyaan balse si buuxda looguma abaalgudo adeegyadaas ayuu yiri Mr. Munich wuxuu sheegay in la kala saafo dadka isla markaana dadka been abuurka faafinaya iyo wararka nacaybka kuwa markaas dadka bulshada kala goonaya ay tahay in dunida oo dhan lagu sameeyo baaritaan isla markaana laga eriyo baraha bulshada lagana mamnuuco si loo badbaadiyo maskaxda dadka
dadka dhalinyarada ah iyo da'yarta ayuu sheegay. Shirkadda Google iyo Facebook ayaa qayb libaax leh ka qaata dhaqaalaha cusub ee ka soo baxa xayeysiinta, taasoo saameyn ku yeelata xayeysiinadii ay heli jireen wargeysyada oo iyagu soo saara wararka muhiimka. Mr. Murdoch ayaa ah gudoomiyaha shirkadda News Corp oo ah shirkadda iska leh Wall Street Journal. dakhliga soo gala shirkaddan ayaa hoos u dhacay iyada oo ay khasaartay dhaqaale fara badan sanadkii haatan in weydaartay 2017. hadalka saxafiga rugcadaaga ee Robert Murdoch ayaa ku soo beegmay xilli shirkadda Facebook ay qiratay in baraha bulshada ay halis ku yihiin dimuqraadiyadda, ayna shirkadda sheegtay inay xalin doonto arrin dhibaatadaas. shirkadda Facebook ayaa cadaadiska weyn ee la saaray waxaa ka mid ah in dalal badan oo adduunka ka kala tirsan bulshadooda oo gaar ahaan dadka jecel dalkooda ay markaasi ay report gareeyeen ama ay markaasi dacweeyeen dad fara badan oo warar been abuur ka buuxsha, kuwaas oo isku celcelis la sheegay inay maalintii soo galiyaan 20 ilaa 10 war oo been abuur ah, kuwaas oo ay bulshada ku kala qaybinayaan. waxaana taas ay keentay in shirkadda Facebook maxkamada lagu furo isla markaana lagu dhaleeceeyo dhibaatooyinka xooggan ee markaasi ay u geysanayaan maskaxda dadka, iyada oo sidoo kalena warbixino kale oo arintaas la xiriirana aan dabcan idahayno. halkan nagala socotaan oo Horfadhi Media inagoo wali ku dhex jirna arrimaha Facebook iyo arrimaha warbaahinta bulshada, dabcan daawadayaal oo saameyn weyn ku leh nolosha ummadda ama dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo tan caalamkaba. agaasimaha guud ee shirkadda telefoonada casriga ah ee Apple ayaa wiil uu adeer u yahay ka mamnuucay isticmaalka baraha bulshada maadaama ay yihiin kuwo aan wanaagsanayn, sidoo hadalka u dhigay. hadalkiisa ayaa wuxuu imaanayaa xilli daraasado la sameeyay ay muujinayaan in bulshada ay aad uga hor imaanayso isticmaalka barahan oo lagu eedeeyay inay faafiyaan waxyaabo xun been abuur iyo sawirro iyo waliba sidoo kale waxyaalo kale oo macna darro ah iyo kala qaybin arrimaha bulshada. shirkadda Facebook, Twitter ayaa qirtay inuu dhib jiro. sidoo kale Tim Cook, agaasimaha Apple, ma uusan sheegin da'da uu wiilka wadeerka u yahay uu jiro, balse wareysi uu bixiyay sanadkii 2005 ayuu ku sheegay inuu jiray markaasi 10 sanadood. taa macnaheedu waxa weeye haatan inuu wiilku jiro 14 ama 2 ama 13 da ahaan. anigu caruur ma lihi, balse wiilkan adeerka u ahay uma ogoli inuu isticmaalo baraha bulshada, ayuu yiri Tim, oo qalabka shirkadiisa ay soo saarto uu yahay kan ugu badan ee laga isticmaalo kolka ay timaado baraha bulshada, isla markaana dhiirigeliya isticmaalkooda. marka laga hadlayo adeegyada ay telefoonada leeyihiin weeye, shirkadaha baraha bulshada ayaa soo saaray xeerar ay ku xadidayaan isticmaalka baraha bulshada ee caruurta da'doodu ka yar tahay 13. xeerka difaaca xogta gaarka ah ee caruurta Mareykanka ayaa mamnuucaya ama shuruud ku xidhaya ilaa iyo xad shirkadaha baraha bulshada ay xog ka kaydin karaan caruurta da'doodu ka yar tahay 13 jirka, isla markaana ay tahay mamnuuc in ay u ogolaadaan inay furtaan baraha bulsho ama ay xogtooda helaan. maalintii Jimcaha ahaydna shirkadda Twitter ayaa qiratay in burcad internetka ee dalka Ruushku ay shabakadan ku dhex faafiyeen warar been abuur ah si loo farageliyo doorashadii Mareykanka ee dhacday 2016. waxay Twitter fariin email u direysay ilaa iyo 775 qof oo shacab ah, isla markaana ah isticmaalayaasha Mareykanka, kuwaas oo dhammaantood ku nool dalka Mareykanka, isla markaana ay leh ciwaano barta Twitter-ka ah. sidoo kale waxay dadkan Mareykanka ku nool u sheegtay inay si ogaadaan in dad Ruushiyaan ah oo ciwaano been abuur leh ay ku dhex dhaqan yihiin Twitter-rada Mareykanka. YouTube-ka ayaa iyaduna waxay walwal ka qabtay qof shabakadan soo galiyay mayd qof lagu dilay dalka Japan, taasoo iyaduna ahayd markaasi dhacdo ay markiiba ka hortageen, iyaduna taasoo ka dhigaysay iyaduna kolkaasi mid meel ka dhac ku ah markaasi dhalinyarada ama caruurta yar yar. baraha bulshada iyo waliba xitaa Apple ayaa wajahaya dhaleecayn sii kordhaysa oo ah inay wax ay dadka qabitamaan ama balwado ah ka dhigan marka ay cabaar isticmaalaan, isla markaana loo baahan yahay in la xakameeyo. waxaa sidoo kale lagu dhaleecanayaa in dad markaasi maskaxiyan aan aad u fiyoobeyn ay baraha bulshada aad u isticmaalaan, isla markaana ay si toos ah u soo galaan khadka ama ay qoraallo maantaba soo geliyaan kuwaas oo la xiriira baa la leeyahay inay markaasi ay u adeegsadaan baa la yiri waxa loo yaqaano hate speech ama hadallo nacayb ah oo markaasi ama kicin ah oo kuwaas oo dhibaato xoogan ku yeesha. Dr. Josh Wright oo ka tirsan jaamacadda Oxford, isla markaana ku takhasusay cilmi nafsiga, ayaa
wuxuu baraha bulshada uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo saameyn weyn leh isla markaana ay khasab tahay in la helo in la isticmaalo marka ay timaado buu in la helo xogo ku saabsan balse wuxuu sheegay in qaab nololeedkan ay tahay in laga fikiro isla markaana ay tiknoolajiyadan laga control dadka qaar taasoo ah buu kuwa bulshada ayagu nabar ku ah wuxuuna Dr. Joyce Wright aaminsan yahay in dad badan oo u isticmaala baraha bulshada si khaldan ay yihiin kuwa aan fayoobeyn wuxuuna sheegay in dadka faraha badan ee raaca dadkaasi ama follow gareeya ama share gareeya qoraaladooda ayaguna yihiin dad u baahan in maskaxiyan la baaro maadaama qofku waxa uu share gareenayo ama uu bulshada kale la wadaagayo ay tahay inuu laba jeer ka fikiro isla markaana uu eego masiirka ay ku yeelan karto buu yiri markaasi in waxan la sii faafiyo iyo dhibaatada ay u geysan karto danta guud Dr. Joyce Wright oo ka tirsan jaamacadda Oxford wuxuu sheegay in Facebook uu u baahan yahay in uu dadka faraha badan dadka wata ee markaasi hadana ka hadla waxyaalaha maalayacniga ay u baahan yihiin in dadka noocaas oo kala xakameeyaan isla markaana xataa ay ka codsadaan dalalka ay ku dhaqan yihiin ama dalalka ay u dhasheen in baaritaan caafimaad lagu sameeyo qofkaasi isla markaana hadii uu noqdo qofkaasi qof xagga markaasi maskaxda wax ka qaba ay tahay in loo sameeyo markaasi ay yiraahdeen wuxuu yiri adeeg caafimaad oo degdeg ah la siiyo isla markaana laga xanibo inuu si isticmaalo baraha bulshada si uusan dadka kale uu markaasi uusan dhibaato u gelinin dadkana uusan u kala qaybin halka nagala socotaana waa warfadhi media daawadayaal wali waxaan wax qaadanaa wararkii dabcan qaybta labaad ee wararka ayaynu ku qaada dhigi doonaa arrimaha kale oo dhan ee siyaasadda iyo dabcan arrimaha culculus ee jira ee dalka Saudi Arabia isbahaysiga hogaamiyana uu dagaal xoogan ka wada dalkaasi Yemen tan iyo bishii March ee sanadkii 2015 ayaa ballan qaaday lacag dhan 1 bilyan oo u dhigan 1 bilyan iyo 500 oo milyan oo dollar taasoo lacagta ku bixi doonta arrimaha gargaarka ee dalkaasi deeqdan ayaa kordhinaysa baaxadda dekedaha dalka Yemen si looga soo dejiyo shaxnado gargaar marin u noqon doona baa 17 goobood baa leeyahay oo marin u noqon doona hay'adaha gargaarka 3 sano oo calaamad ay socotay dalka Yemen iyo godoomin ay soo rogeen isbahaysiga Sacuudiga ayaa sababtay waxay qaramada midoobay ugu yeedhay dhibaatadii bini'aadanimo ee ugu weyneed ee caalamka soo marta waa sida ay sheegeen hay'adaha gargaarka qaarkood dadka gargaarka u baahan waxa kamid ah baa leeyahay 8 milyan iyo bad qof oo aan haysan wax cunnaa kuwaas oo macaluul qarka u saaran sidoo kale dalka Yemen ayaa la daala dhacaya cudurka daacuunka oo ka dilaacay dalkaas waxaana u dhintay muddo sanad ah in ka badan 2244 ruux xulufada Sacuudiga hogaaminayo ee Yemen ayaa kula dagaalamaya koox Xuutiyiin ah oo la sheegay inay taageero ka helayaan dawladda dalkaas Iran Xuutiyiinta ayaa u muuqda kuwo markaasi awoodooda ay sii tarayso iyadoo ay helayaan hub casri ah iyo waliba gantaalo nooca plastic oo iskaad ah oo ay ku tuuraan mararka qaar kood dalalka dariska horay ay dhawaan ayay waxay hanjabeen inay duqeynayaan saldhigyada waaweyn ee dalka Imaaraadka Carabta iyagoo xataa ku halqabsaday saldhig ay Imaaraadka Carabtu ka hadlayaan magaalada Berbera ee dalka Soomaaliya waxa la sheegay in sidoo kale kooxdan Xuutiyiintu ay doonayaan inay duqeyn xoogan ay ka geystaan magaalada Abu Dhabi gaar ahaan xarun dhinaca nuclear-ka oo tabarta ah oo halkaas ay dawladda Imaaraadku ka wado taasoo dhismaheedu hadda uu bilow u yahay dhawaanna waxay weeraro dhinaca gantaalaha ku qaadeen garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Riyadh ee King Khalid International Airport waxayna sheegeen in ay duqeyntu si socod doonto daawadayaal qaybta dambe ee wararka la soco gordhow dabcan iyo wararka dalkaasi Turkiga iyo ciidamadiisa howlgalka ay ka wadaan dagaalka oo cuslaaday Mareykanka oo dad diray Falastiin oo aqoonsi ka doonatay dalalka Yurub isla markaana diiday inay la kulmaan madaxweyne ku xigeenka Mareykanka qodobadaasi kuwa kale hamoogaan qaybta labaad iyo qodobada culus dabcan share gareynta wararka iyo la wadaagista wararka waxtarka leh dabcan oo noqon dooneen warar dhibaato ku noqdo ummadeena Soomaaliyeed anagoo idin ballan qaadana inay wararkeenu mar walba noqdaan kuwa ummadda Soomaaliyeed dhexgeeya caalamka daawadayaal waa mas'uuliyad idinka saaran inaad markaasi uga faa'iideysaan ummadeena si aynu u helo markaasi ama ay u helaan warar ka baxsan markaasi kuwa kala qaybiya iyaga dhexdeeda